السلام عليكم. صونك يا عافمتك محاول حيا صونك وعبادة يا عمل ونكسن وعلى لو قدوادو وانا واجب دينا اولو ليه قف والبو قنقاو اما بوحي شروطها الدين تنصوبا واستاصي ورئيس وجرى علماء دخاتر يا حليك لدول سمي بارتان وجاكي سويا هاي إنه يؤذن حريرك كدحين كرصونك يا عافمتك وحاول إن صوك ونفسي عافمتك بل سايسا بطبغني أقوم لهين وحان لقمار مالوه إن أنا أغانو عافمتك كلبا صونك قرمدا وحاول تلقلنا إنان eegna qodobada caafimaadka ee la xiriira soonka intooda la isla meel dhigay ee ka maran aragti kala duwanaanta kuwa waali lagu muransan yahay hoos u dhigada miisaanka jirka marka uu qofku sooman yahay waxaa jirkiisa ku yar tamarta uu ka heli ka jiray cunnada taas oo beddelkeedu uu noqon karo inay soo daayaan hormoono kiimikaal kuwaas oo burburiya ودعنا بروتة جركا يبروتة كجرت جركينا تاسو وناكسن عافماتك وحاسدوك لله مزية هاي إن كالسترول كليقو يهوس ودعضو حيليقو قفو سومية هاي تاسو أهمية بلاران أوله عافماتك صونكا يا كروقا نسودين تهورمونك كوريتانكا تاسو كقيبقاتا قوبيدا حيرتا جيركا gaarta ahna mid caloosha yuuriga xayrtan ayaa mid keenta loona sababeeyo xanuuno badan ka hor tagidda sonkorowga nooca labaad sonkorowga ayaa yareeya inay sonkorowga waxaa yareeya inuu jaaniskan ku iman karo sonkorow nooca labaad isagoo yareeya cadaadiskan ka hor iman karo hormoonka insulin sida caadiga ahna sonkorowga nooca labaad ayaa yimaada marka ay badato sonkorta dhex wareegaysa dhiigga halka ganaca laga soo daayo hormoonka insulin balse xilligan waxaa fashil ku yimaada hormoonka taasoo ay sababto markii ay meesha ka baxdo mikaabyada ay qabsan karto insulin si ay u kaysato sonkorowga dhiigga ku jirta sonkorowga ayaa yareeya cadaadiska ama waxyeelada soo wajihi karta hormoonka insulin waxaana la aaminsan yahay in uu kaas oo ku saabsan in soonku uu ka hortago xanuunada kelyaha kor u qaadida difaaca jirka soonka ayaa kor u qaada qaab dhismeedka difaaca jirka taas oo jirka ka caawinaysa inuusan u nuglaanin jeermiska iyo xanuunada soo geli kara jirkiisa jirka ayaa awood u leh inuu la dagaalamo waxyaabaha sababa xanuunada sida jeermiska iyo ilmaqabatada علمي بارس ayaa cadeynaysa in soonku oo sidoo kale ka hortaga dhaawaca waxyeelada soo gaarta DNA taasoo ka hortagta wanaagsan jirka ayaa muhiimad ballaaran u leh la dagaalanka caabuqa wadnaha soonka ayaa u wanaagsan caafimaadka wadnaha walow cilmi baaristan badankeeda lagu ogaaday layliyo lagu sameeyay xayawaano kala duwan haddana dad tiro oo cilmi baarista loo adeegsaday ayaa lagu ogaaday in soonku yareeyo cadaadiska dhiigga kolestaroolka dhiigga iyo sonkorta dhiiggaba tan ayaa muhiimad ballaaran u leh caafimaad qabka wadnaha iyo xubnaha kala duwan oo jirka ka mid ah cilmi baaristan ayaa mid weli socota oo aan dhammaan horu dhaceeda ayaa lagu shaaciyay in soonku uu wanaagsan yahay caafimaadka wadnaha iyo xubno kale oo la xiriira sida kelyaha iyo maskaxda dayactirka unugyada jirka soonka ayaa ka qayb qaata muhiimad u ah dayactirka unugyada jirka qaybahooda kala duwan xilliga uu qofku sooman yahayna waxa uu jirka wadnaha iyo xubnaha kala duwan u jirkaba cilmi baaristan ayaa mid weli socota oo aan dhammaan horu dhaceeda ayaa lagu shaaciyay in soonku wanaagsan yahay caafimaadka wadnaha iyo xubnaha kale oo la xiriira sida sambabadii oo neef qaadanaya in badan dayactirka soonkan oo ka qayb qaata xilliga uu qofku sooman yahay laba jeer waa burburinta nadiifinta unugyada dhintay iyo dayactirka ka dhaawaca haddii ay jirku ku bataan unugyada dhaawaca waxay sababi karaan xanuuno kala duwan oo ay ka mid yihiin kansarka iyo Alzheimer soonka ayaa ka hortag wanaagsan oo xanuunadan qodobadan ayaa kuwa la cadeeyay lana ogaaday inkastoo weli qaarkood ay ku soo socoto baaritaan haddana waxaa jira faham guud oo ku saabsan in soonku uu wanaagsan yahay
guud ahaan caafimaadka oo faya dhowrka jirka. Xanuuno badan ayaa u yahay daawo iyo ka hortag, kuwa wanaagsan kuwaasoo qaarkood ay yihiin kuwa aan weli lahayn daawo rasmi ah oo lagu tacaalo. Wassalaamu calaykum.